بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada manfac TV qodobada wararka caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hogaamiyaasha wadamada carabta oo si jawaab wadajir ka bixinayo weerarkii dhawaan ay ku qaaday Israel magaalada Doha ee dalka Qatar iyo hogaamiyaashan oo shir isugu imaanayo shir madaxeedka wadamada carabta ee ka dhacayo Qatar ciidanka Israel oo qaaday duulaan dhulka oo cusub kuna qaaday koonfurta Suuriya iyo Venezuela oo cambaareysay markab dagaal oo Mareykan ah oo xoog ku qabsaday dooni kalluumaysi ah oo laga leeyahay dalka Venezuela qodobada iyo qodobo kale oo dhameystiran ayaad ku maqli doontaan waa maalinimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 14 bisha sagaalaad ee September sanada 2025 ku soo dhawaada faahfaahinta wararkaasi hogaamiyaasha wadamada carabta iyo guud ahaan gobolka bariga dhexe ayaa ku ururaya caasimada Qatar si ay uga wada hadlaan jawaabta rasmiga ee la doonayo in looga dhiidhiyo duqeymihii Israel ee dhawaan lagu qaaday Doha toddobaadkii hore kuwa oo ay sheegtay in ay ku beegsatay hogaanka Hamas balse saameyn xoog leh ku yeeshay guud ahaan bariga dhexe Israel ayaa gantaalo ku garaacday xilli xubno Hamas ka tirsan ay ku shirayeen gudaha Doha si ay uga wada hadlaan heshiiska wadaxaajoodka uu soo jeediyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee lagu joojinayo dagaalkan 2 sano jirsaday ee xasuuqa ka dhanka Gaza weerarkan ayaa dhacay saacadoon kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Israel uu sheegay in Israel ay aqbashay soo jeedinta Trump taasi oo lagu sii deynayo 48 kamid ah maxaabiista Hamas ay ku hayso Gaza iyadoo loo bedelanayo maxaabiis Falastiiniyiin ah oo Israel ay ku haysay gudaha Israel iyo xabad joojin Israel waxay ku dishay weerarkan 5 xubnood oo Hamas ka tirsan iyo sarkaal amni oo ka soo jeeda Qatar inkastoo aysan dilin hogaanka Hamas oo ay sheegtay in ay beegsanaysay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si wadajir ah u cambaareeyay weerarkan Khamiista Qatar ayaa martiqaad ama casuumaad u fidisay hogaamiyaasha dalalka Carabta si ay uga wada qayb galaan shirar ku soo biyo shuban doono shir degdeg ah oo markaasi wadamada Carabta u qabsoomay maalinimada Isniinta afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Qatar in shirkan looga doodi doono qaraar ku saabsan weerarka Israel kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee xadda ayaa la doonayaa in looga hadlo qaraarkan waxaan la filayaa in uu ka dhaco amaba lagu daro codadka caalamiga ee cambaareynaya weerarka Israel رئيسul wasaare Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani oo la kulmay Trump gudaha New York jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa sheegay in Qatar ay raadin doonto jawaab midaysan oo looga bixinayo weerarkan kaasi oo halis geliyay guud ahaan gobolka Qatar ayaa muddo dheer door markaasi dhexdhexaadin ku lahayd iyadoo uu ku dadaaleysay in la soo afjaro dagaalkan Israel ee Gaza iyo in la abuuro mideyn goboleed kulamada axadda iyo Isniinta waxa ay noqon doonaan kuwo lagu eegi doono dareenka taageerada Falastiiniyiinta iyo diidmada weerarada Israel ee gobolka ka socdo hogaamiyaashu waxay ka wada hadli doonaan siyaabaha ay tallaabo uga qaadi karaan weerarada Israel ee gobolka oo dhan Israel waxay sidoo kale duqeysay Iran, Suuriya, Lebanon iyo Yemen iyadoo dagaalkeeda xasuuqa ee Gaza iyo weerarada ciidanka joogtada ay ku sameynayaan ama ay ka wadaan daanta galbeed ee la haysto ay weli sii socdaan dareenka amni oo ay ku naaloonayeen Qatar iyo dalalka deriska ayaa la burburiyay taasi oo qasbi karta in ay raadsadaan heshiisyo amni ama difaac cusub oo ay la galaan Mareykanka isla markaana ay isku dhaafsadaan hub iibsasho oo kaliya siyaasaddu waxay leedahay dhinacyo muhiim ah gaar ahaan iyadoo Washington weli taageero buuxda ay siinayso Israel inkastoo carada caalamiga ay sare u sii kacayso iyadoo wasiirada iyo madaxda ay ku soo qulqulayaan Doha ee dalka Qatar axadii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa u safray Israel si uu la kulmo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo hogaamiyaasha kale ee sarsare waxyaabaha looga wada hadli doono waxaa ka mid ah qorshaha lagu doonayo in lagu darsado dhul ballaaran oo ka mid ah daanta galbeed qorshahaasi ayaa waxa uu lagu tilmaamay isu tagga Imaaraadka Carabta oo ka mid ah heshiiska Mareykanka uu horseeday ee Abraham Accords si caadi loogu yeelayo xiriirka Israel inuu yahay xariiq cas oo dhaawici kara ama xariiqtin cas oo dhaawici karta heshiiskaasi Saudi Arabia iyo dalalka kale ee gobolka ee Israel iyo Mareykanka indhaha ku hayaan sidii xubnaha mustaqbalka uga mid noqon lahaayeen heshiiskaasi ayaa sida falanqeeyaashu ay sheegayaan meel ka fog sidii ay ugu dhawaan lahaayeen caadi ka dhigid xiriirka Israel sanadihii u dambeeyay
qalabka dowladuhu ay u haystaan in ay kaga jawaabayaan gardarrada waxaa ka mid ah tallaabooyin ay ka mid yihiin in la dhimo heerka xiriirka diblomaasiyadeed. dalalka carabta sida qatar, sacuudi carabiya, kuwait iyo imaaraadka waxay leeyihiin awood dhaqaale oo ballaaran oo ay u adeegsadaan cadaadis iyo sidoo kale sanduuqyo maalgelin qaran oo waaweyn oo leh maalgashi caalami ah kuwa oo xanibaad saari kara Israel oo ay ku jiraan xadidaadaha ganacsiga. qatar ayaa sheegtay qayb ka mid ah jawaabteeda inay noqon doonto mid sharci ah oo ay ku jirto in la dabaqo jebinta Israel ee sharciga caalamiga. ciidamada Israel ayaa sameeyay howlgal dhulka oo ka dhacay gobolka koonfureed ee bari ee Darca ee dalka Suuriya sida ay ku warantay wakaaladda wararka dowladda Suuriya. tani waa duulaan kale oo ay ciidamada ku galeen dalalka deriska iyadoo sidoo kalena Israel ay sii wado duqeymaha cirka ee ka socda Dimashq iyo meelo kale. ciidamadu waxa ay baaris ka sameynayaan magaalooyinka Saysasun iyo Jamlah Axad kuwa oo ku yaala agagaarka xariiqda xabad joojinta ee 1974 loogu talagalay in lagu kala saaro ciidamada Israel iyo Suuriya. sabtidii Ahmed al-Shara oo ah madaxweyne ku meel gaar ah ee dalka Suuriya ayaa sheegay in wadahadallo lala yeeshay Israel ay bilaabeen si dib loogu soo celiyo heshiiskii 1974 ee la gaaray kadib dagaalkii 1973 ee labada dal dhex maray. Israel iyo Suuriya ayaa bilihii la soo dhaafay ku jiray wadahadallo toos ah balse al-Shara waxa uu meesha ka saaray caadiyeynta xiriirka. wadahadalladu waxay diiradda saarayaan joojinta falalka gardarrada ee Israel ee ka wada Suuriya iyo gaarista heshiis amni. Israel waxay qaaday boqolaal weeraro oo dhanka cirka oo lagu bartilmaameedsanayay goobaha iyo hantida militari ee guud ahaan Suuriya tani markii uu dhacay dhicitaankii hogaamiyihii hore Bashar al-Assad bishii December. waxaa kaloo ay ballaarisay gumaysigeeda buuraha Golan Heights ee Suuriya iyagoo qabsaday aagga aan la hubeysnayn ee buffer zone kaasi oo ku xadgudubtay heshiiskii kala bixitaanka ee 1974. Arbacadii Suuriya ayaa si adag u cambaareysay weerarada Israel ee lagu qaaday dhowr goobood oo ku yaala magaalada Homs ee galbeed ee dalkaasi iyo hareeraha magaalada xeebaha la ah ee Latakia. weerarada cirka ee Israel ayaa ah ku xadgudubka cad ee madaxbannaanida Jamhuuriyadda Carabta Suuriya ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. muddo sanado ah Israel waxay ku waday ololo qarsoodi oo duqeymo cirka oo lagu burburinayay kaabayaasha ciidanka Suuriya hase yeeshee weeraradeedu si weyn ay u kordheen tan iyo dagaalkii Gaza iyo dhicitaanka dowladdii Bashar al-Assad. dabiiqadii Agoosto 6 askari oo Suuriyaan ayaa lagu dilay weerar drone ah oo Israel ay ku qaaday Dimashq. maalintii ka horreysay waxa ay jiray duulaan dhuleed oo ay ciidamada ku galeen dhulka Suuriya. weerarada Israel ee Suuriya ayaa kusoo beegmaya xilli ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu sii wado faafinta aragti ku saabsan in Israel howlgalladan ay taageerayaan Israa'iiliyiinta qoomiyadda xagjirka taasi oo sheegata lahaanshaha daanta galbeed iyo Gaza iyo sidoo kale qayb ka mid ah Lubnaan, Suuriya, Masar iyo Urdun. kadib rabshadihii ka dhacay koonfurta Suuriya ee Suweyda 13 Luulyo oo dhex maray dagaalyahanno Beduusiya iyo kooxaha duruushta ciidamada dowladda ayaa loo diray si ay u joojiyaan dagaalka laakiin dhiigga ayaa sii daadanaya waxaana Israel duqeysay ciidamada Suuriya iyadoo sidoo kale bombo ku garaacday bartamaha caasimadda Dimashq iyadoo marmarsiyo ka dhigatay in ay difaacayso dadka duruushta. inta ayaan kusoo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay caalamka oo aad kala socoteen warbaahinteeda Manfac TV. haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo saar janaalkan like garee muuqaalkan la wadaaga asxaabtaada meel fog inoo gaarsii.